السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. daabadayaal kusoo dhawaada mawduuceena maanta. intaan barnaamijka u gudagelin janaalka Barka 252 haddaa ku cusub tahay subscribe, like, share and comment mahadsanidin. xidiga kooxda Barcelona ee Leo Messi ayaa ku guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiican adduunka kadib markii uu si lama filaan ah u garaacay xidiga Liverpool ee Virgil van Dijk. kabtan Messi ayaa mar kale ka yaabsaday adduunka kuna guuleystay abaalmarinta xidiga ugu fiican adduunka sanadka 2019 kadib qaab ciyaareed fiican oo soo bandhigay. Messi ayaa Barcelona ku hogaamiyay horyaalka La Liga halka uu sidoo kale noqday gooldhaliyaha Yurub iyo La Liga sidoo kale dhaliyay 50 gool oo tartamada oo dhan. dhanka kale kooxda ayaa caawa kulan xiiso leh la ciyaari doonto kooxda Villarreal horyaalka La Liga. Usama Dembele ayaa kooxda ku soo laabtay asagoo la filayo inuu caawa kulankiisa ugu horeeyay xilli ciyaareedkan horyaalka uu ka soo muuqdo. Leo Messi ayaa mar kale la filayo inuu kursiga keedka soo fariisto ciyaarta caawa, sidoo kale De Jong ayaa isagana la filayaa inuu keedka ka soo muuqdo. Arturo Vidal iyo Artur Melo ayaa labadooda la filayaa inay ku soo bilowdaan ciyaarta, waxaana ku weeli doona Sergio Busquets. Barcelona ayaa guul ka gaartay 9 kulan ee ugu dambeysay horyaalka La Liga markii ay ku ciyaareyso garoonka Camp Nou Stadium. ciyaarta caawa waxaa la daawan doonaa 4 saac oo habeenimo. waxaad kala socon kartaan page-keena Facebook aan ku leenahay ee Barcelona Somali Fans. janaalka Barka 252 fadlan rukumo janaalkan haddaad ku cusub tahay. intaan muuqaalka xiga isku arki doono, sidaas iyo nabadgelyo.